أخياري سودو هذا رمضان كريم حلقا صلاة تراويح هذا وقت كان لقى صوبحي رنتي waxaan rabaa inaan idin soo koobo wararka xiisada bariga dhexe aad ay xiiso u leeyihiin runtii ninkii wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa kulan ayuu qabtay maanta golaha wasiirada isagoo si cad u sheegay in isbahaysi cusub bilowday walibana waqtigan dalal badan uu ku xusay talaabooyin adagna markaasi uu tilmaamay waxa sidoo kale laga baqdin qabaa in dhawaan qayb uu ka noqon doono dagaalka bariga dhexe oo si adag markaasi ugu furmi doono Mareykanka iyo waliba sidoo kale Iran laakiin macada qorshaha iyo waliba talaabada isagana markaas uu ka geysan doono laakiin waxa la warinayaa qorshe ah in uu markaasi kaalin uu ku yeelan doono hadii uu markaasi ka fiirsanin qorshaha ugu adag hadaba maxaa ka soo kordhay saacadihii ugu dambeeyay afurkii ilaa islaa taraawix intuu dhaxaysay waxa la warinayaa in uu ku dhawaaqay ba isbahaysi cusub oo walibana hadii isagoo soo qaatay dalal dhowr ah ku sheegay in isbahaysi u sameysteen laakiin dhankooda isagana hadda uu sheegay in isbahaysi cusub ay sameyn doonaan si xiisada bariga dhexe ay markaas qayb ay ugu noqdaan waxaan rabaa dhammaan intaasaan rabaa inaan fafalanqeyno daqiiqadaha yar kooban saaxiibada waxay ka codsanayaa markuu ugu horeyso channelkan de imaamada lagu tuuro subscribe ta la saaro ramadan intaan ku jirnaa rabnaa inaan shuruudaha gaarno intaasna inaan gaaro adiga ayaan kugu xiranahay hadii muuqaalka like iyo saarto subscribe na soo dhaxdo nagu soo biirto dawaanba gaarnay shuruudaha wax noo harsan ma jiro maasin soo saaxiibada wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo markaasi ku jiray furitaanka shirka golaha wasiirada wuxuu yiri aragtida aniga aan qabo gabi ahaan waxaan markaasi ku salifi doona ama aan ku xiri doona ayuu yiri rajo weyn oo aan ka qabo xulfaysiga mindariska loo yaqaano ee bariga dhexe Afrika ee ku jiraan Hindiya Carabta iyo waliba dalal kale oo badan oo ku xusay taasi oo uu ku sheegay in Greek xitaa iyo waliba Qobrus ay ku jirto kuwaasi oo dhan buri waxay xaqiiqdii sida ay markaasi ay tahay buri ay isugu hortaagan yihiin isbahaysiga xaq jirka ah buu yiri isagoo markaasi hadalkiisa wato wuxuu yiri haatan wuxuu yiri shiicada xaq jirka ah waxa markaasi mid sunni ah markaasi xaq jir ah ku jira buri ama saameyn ku yeelan kara qolaada bariga dhexe waqtigan ka sii horeyso dhinaca kale wuxuu aad u soo hadal qaaday dagaalka ka dhaxeeya Iran iyo Mareykanka iyo waliba sidoo kale xulfaysiga kale halkaas ka socda iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn ay isku haysteen oo waliba dood adag ka taagneed kiiska Iran iyo Mareykanka oo markaas muddo dambe isagana la soo kala dhaxgalay oo waliba ay u muuqatay in dood adag lagu furay iyo waliba qorshe kale oo dalalka Carabeed ay si weyn markaas ugu hor istaageen dhinaca kale markuu wuxuu sheegay waxaan la qorsheenayaa buuri arbacada in wasaaraha Israa'iil wasaaraha Hindiya markaas booqasho ku imaan doono buuri Israa'iil oo markaas uu kula kulmi doono Netanyahu in markaas iyadoona la filayo in ay markaas saxiixan doonaan heshiisyo military Hindiya markan waxay xiriir la sameyn rabtaa ama ay rabtaa in ay xulfaysi dhow ay la gasho dabcan Israa'iil oo u muuqato waqtigan in kaalinteeda dagaalka inay qayb ay kala noqoto waxaana markaas la tilmaamayaa talaabada ku aadan Hindiya inay markaas heshiiskan military ay la galayso taasi oo wax weyn ay qayb kaga noqon karto buuriri heshiisyada difaaca ay la galayso dalalka bariga dhexe ee markaas la xiriira Israa'iil waxaan markaas la fahansan yahay buuri in ay qabaan iskaashi ay qayb ay ka yihiin xulfaysiga Netanyahu iyo waliba sidoo kale kuwa kale oo wali aan la soo shaacin laakiin la qorsheynayo inay soo bixi doonaan Netanyahu waxa uu markaasi ururka xulfaysiga ama xulfadan cusub oo ay markaasi in ay ka hor istaagayso buu yiri uu ku tilmaamay isbahaysigan sunniga ee ku sii fiday buri dalalka ay kamid ka yihiin Sacuudiga, Turkiga, Qatar, Pakistan, Masar, Geeska Afrika dhammaan ayuu yiri waxay markaas caqabad ku noqon doonaan buu yiri jiritaanka iyo soo socodka dawladda Israa'iil buu leeyahay laakiin dawladii ma aha oo runtii waa wax inta badan gumaysi iyo dadka muslimiinta dhibaato ay ku hayso laakiin isaga soo u qabo uu aaminsan yahay inay tahay dawlad taasi oo ku tilmaamay in ay saameyn markale kala kulmi doonaan wuxuu sidoo kale uu xusay oo waliba aad u daran runtii markaad aragto waad yaabaysaa ninka isaga waa u jeedin wuxuu inta badan uu leeyahay isbahaysigan Shiinaha oo markaas uu ku sheegay sunniga ay yihiin Iran buu yiri Iraq iyo waliba Xuutiyiinta Yemen iyo xulfaysiga Hizbullah Lebanon iyo dalal fara badan dhowr ayuu soo qaatay oo ku tilmaamay waliba in iyaguna ay qayb ay kala noqon doonaan Israa'iil hadii qorshaha hadda socdo aanan si kale ama kala xilxisho lahayn aan looga hortagin wuxuuna tilmaamay in xiisada bariga dhexe waqtigan ay saameyn culus ay ku yeelan karto hadii ay dabcan markaasi talaabooyinka iyo qorshaha iyo ka hortaga waqtigan ay u muuqato dabcan aanan loo qaadin laakiin wuxuu aad u adkeenayaa
in gebi ahaanba markaasi ay burburin doonaan oo ayna ka hortagi doonaan. waan arki doonaa Netanyahu wuxuu kaloo la soo bixi doono iyo qorshaha kale oo la imaan doono halkan aan kugu qaadaal dhigi doonaa. marka ugu horeysa fadlan adigana subscribe noo channelka nagu soo bir kana mid noqo saaxiibadeena noqo saaxiibada hore noo jooga idinka dalbanayna like saaxiibo fara badan ayna tusaysaa channelkan inaan rabno meel aan ku gaarno adiga kaleena mahadsanidin.